السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hadal TV oo toddobaadkii maalmaha ka mid ah naga daawataan warkii oo kooban waxaan idin soo jeedinaa wax soo daahira dagaalka bariga dhexe ka ogan ayaa si laba kacleynaya xilli ka sii dambaysa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa daafuray habeen lagu sameynayo traafikada iyo wadooyinka halkaas markii hore qaabkeedu si ay sheegeen hoos u dhac ku yimi madaxweynaha Puntland ayaa ku soo dalabtay dalka halkaas uu soo maray dalkiina iyo Imaaraadka dowladda federaalka ayaa uga digtay dowladaha ku bohobay 6G inaanay faragelin ku sameyn arrimaha gudaha Soomaaliya dowladda Taiwan ayaa 2 milyan 500 ka caawisay Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas ay sheegtay in horumarinta caafimaadka ay ka qayb qaadanayaan madaxda adduunyada ayaa ka walaacsan dhinaca kale qaabka uu noqon doono dagaalka bariga dhexe kaasoo isagana faahfaahin badan laga socno waxa la sheegay Ruushka iyo China iyo North Korea iyaguna garab istaageen dhinaca Iran halkani waa toddobaadkii oo naga daawataan maalmaha ka mid ah hadal TV ku soo dhawaada warkii oo fidsan dagaalka ka ogan bariga dhexe ayaa si laba kacleynaya markii Israa'iil duqeysay Iran halkaas ka gubtay sala sheegayo dhibaatooyin ay ka soo gaareen nuclear-keeda qayb ka mid ah balse ragaalcintii ay sameysay ayaa noqotay mid argagax ku abuurtay dhammaan daafaca taasoo si lama filaan ay uga jawaabtay wararka adduunyada ka soo xelinaya sida Sky-ga BBC-da iyo France 24 ama 24 intii waxay isku raacsan yihiin in haatan Israa'iil ay dhibaatooyin ka soo gaartay dhinaca gagida diyaaradaha taasoo ay Iran jawaabtii markii hore ay dagaal ku qaaday dhinaca Iran Israa'iil ay haatan jawaabteedu noqotay Iran mid iyadoo ka argudata garoomada iyo magaalada Tel Aviv ayaa habeenkii xalay ahayd magaalada Halcaysa tan iyo xilligan daafaca caalamka waxay u kala safan yihiin inay midba kale ku dhaleeceeyo inay dagaalka dibadda ka dhaceen sida Mareykanka iyo Ruushka China oo isagoo garab istaagay Iran dalka Afghanistan ayaa isaguna sheegay inuu ka xiriyo dagaal ka soconaya isagoo muddo dhaweyd isagana ay fargeliyeen ama dagaalba dhex maray dalka Hindiya dowladda caalamka ayaa midka kale saf ugu jira inay la kala saftaan Iran iyo Israa'iil taasoo laga baqayo inuu dagaalku dhinaca waji kale uu yeesho wadamada Carabta ayaa iyagu ka aamusan halkay qaarkood sheegayaan inay iyagu aanay raalli ka ahayn gantaalada dulmaraya walow ay gantaaladu labada dhinacba ay dulmarayaan falayga adduunka iyo diyaaradaha caalamka oo kala goosha qadaarada daafaca caalamka ee ku kala socda bari iyo galbeed ayaa iyaguna hakad galay habeen hore halkii saaka qaarkood ay laga duway jadwalkii ay mari lahaayeen oo loo duway meelo kale sida Geeska Afrika qaarna loo duway dhinaca iyo Turkiga halkaas ay mari doonaan kana inta u dhaxaysa bariga dhexe waa Sacuudiga iyo Syria Lebanon Urdun Bahrain Qatar Kuwait iyo Israa'iil gabi ahaanba aanay dul mari doonin wax diyaaradaha ku socda halkii Dubai ay dhinaca kale ka soo gali doonaan halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha ka mid ah naga daawataan China iyo Ruushka ayaa isku waafaqay inay garab istaagaan Iran dowladda North Korea ayaa iyadoo sheegtay in dagaal diyaar garoobayso sanad hubna u diri doonto dalka Iran iyo military taasoo dhinaca Mareykanku isaguna oo aan wali laga haynin inuu garab istaagi doono dalka Israa'iil balse labada dhinac ayaa markii hore xilafo dhaqaale isku hayay iyo maamulka adduunka iyo maareyntiisa xadba cidda libinta gacanta ku haysa ayaana adduunka maamusha halkii markii hore dowladaha reer barigu reer galbeedku ay dowladaha reer bariga oran jireen annaga ayaa xagga tiknoolajiyada iyo xagga diyaaradaha ba idiga sarreyna hadda waxaa soo baxaya xilafaysi ka dhan ah labada dhinac waa naatiye warse kuwaasi ku soo bahoobayaan wadamo badan dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xalka ka jiray dib habeen lagu sameynayo traafikada iyo wadooyinka iyo kuwaasoo lagu soo kordhinayo in loo sameeyo liisanada iyo badqabka gaadiidka kaasoo ka qayb qaadan doona horumarinta qaranka kaasoo laga fuli doono dhammaanba degmooyinka iyo gobolada dalka halkan ayaa markii hore ahayd mid iyadoo liisamada laga qaato oo qaybta traafikada balse haatan iyaga gaadiidka labadaba badqabkooda ay ku ogaan karaan traafikadu meel kastoo gaarigaas uu marayo qalabka la casriyeynta ayaa lagu xiri doonaa wadooyinka iyo magaalada dhexdeeda kuwaasoo qaar ay sheegayaan inay noqon karto kamaradaha lagu hubiyo speedka ama xawliga ku soconaya gaarigu madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa ku soo laabtay dalka muddo kaga maqnaa dhinaca Imaaraadka halkaas uu soo maray dalka Kenya madaxweynaha ayaa
subaxii saaka xaliga ka jaray wadooyin iyo mashaariic ay dowladda Puntland ka hirgelisay deegaanadeeda dowladda Puntland ayaana weli dowladda Soomaaliya aanay yeelan wax cilaaqaad ay tan iyo xilligii ay xurgufta kusoo kala martay qaabka heshiisyada iyo maamulka maamulka Puntland ayaa sheegtay iyadu inay cashuurteeda iyo horumarinteeda haatan ay gudanayso madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in mashaariic lagu soo qaato dowladda federaalka ee Soomaaliya aan iyaga xaggooda ka soo galin balse dad ay ku sameystaan guriga banaanada iyo meel ay ku digigsaan balse anagu aan u taaganahay inaan horumarino dowladda deegaankayaga wixii arrin ee Soomaaliya lagala gudbana loo baahan yahay in madal wada tashi lagu yimaado 15 bishan ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku baaqay in la isugu yimaado magaalada Muqdisho halkaas laga tashado qaabka doorashadu noqonayso iyo waxyaabaha la xulgufta keenaya walow aan la sheegin cid ka soo qayb galaysa xilligan halkii labada dowlad goboleed ee Jubaland iyo Puntland iyagu markii horeba ay diideen shirarkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho saxeena aanay ku lahayn halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha kamid ah aan naga daawataan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa uga digtay C6 oo ku bahoobay waa Europeanka Ingiriiska iyo Mareykanka iyo United States iyo dowlado kale oo iyagu ku bahoobay inay Soomaaliya ka caawiyaan dhinaca amniga inaanay faragelin qaabkii doorashadu noqonayso ama arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa tan iyo xilligii muddo laga joogo 12 sano haatan u taagan inay tahay dowlad iskeed tahay halkii markii hore qaramada midoobay ay gacanta ay ku haysay balse Soomaaliya ayaa waxa jooga dowlado shisheeye oo ka caawiya dhinaca amniga iyo ciidamo shisheeye kuwaas oo wali alanka aan Soomaaliya si toos ah ula wareegin amnigeeda taas keenaysa in meelo kale laga ducayo sida madaxweynaha Xasan Sheekh iyo wasaaradda arrimaha dibadda isku raacsiin ayaa in iyagu madax banaan yihiin qaab maamulka iyo maareynta iyo wada tashiga iyo qaabka loo hirgelinayo doorasho hal qof iyo coda si kastoo haataba beesha caalamku wali kama soo jawaabin balse waxa la filayaa inay uga soo jawaabto warqadda wasaaradda arrimaha dibadda wasiirada arrimaha dibadda u diray qaramada midoobay igad Carabta iyo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dhammaan bacdi ay khoseyso danjira u jooga qaramada midoobay ayaa isaguna ay qaabilsiin kaasi horena walaac uga muujin qaabku ula shaqeeyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo ay leeyihiin amarka u dambeeya annaga leh dowladda Taiwan ayaa Jubaland Somaliland ku caawisay 2 milyan iyo 500 halkaas oo sheegtay in caafimaadka iyo waxbarashada ay kaga qayb qaadato haatan saytan ay tahay caafimaadka dowladda Taiwan iyo Somaliland ayaa la xiriir muddo soo taagnaa kaasi marka dambeeya ay u soo sare u qaadayaan Mareykanka ayaa ku taageeray Somaliland wasi hadalka u dhigeen inay Taiwan cilaaqaadkooda mid heer sare noqdo maalin biyagii soo socday ayaa Taiwan iyo Mareykanka uga digay inaanay faragelin dalka China balse wali alanka lama aqoonsan oo Mareykanku veto power uma saarin balse xagal ayuu ugu hayaa qaabka maamul iyo maareynta madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay in dagaalka ka soconaya bariga dhexe kaasoo muddo 24 sano ka soconaya laga soo bilaabo dowladda Ciraaq ee Allah naxariistay uu hayay Saddam Hussein tan iyo iminka dowladaha Carabta ama bariga dhexe ayaa maalinta ka sii dambaysa holcaya kaasoo aan lahayn wax qiilo dib u habeyn iyo dowladda iskeed isu taagta in soo ku tilmaamay Erdogan waxa uu sheegay in cawaaqib ka dhalan karto kala safadka iyo in kala dhinac raacida bulshooyinka ama diimaha isuu ku tilmaamay inay yihiin dowladaha reer galbeedkuba Israa'iil iyo Iran ayaa hadda taaganta waxaan loo baahan yahay soo hadalka u dhigay in laga wada hadlo arrinka Falastiin kaasoo ayaguna ay taageeri jireen oo khadka imka xoog laga saaray Hezbollah iyo ciidamadiisii iyo ururka Hamas ayaa lagu dilay gudaha Iran muddo dhaweyd taasoo keentay in labada wadan ay sii xoogto xilfaysigoodu balse dowladda Turkiga ayaan wali alanka cidii raacsantay si toos ah uga baleelin waxaan halkan isagana aan wareys ka qaadi doonaa isagoo ku sugnaan goobta TV-ga Asad Cabdiqaadir jaamacadda tafatiraha TV-ga hadal TV Asad ku soo dhaw Hussein salaam alaykum Asad waxa ka dhacay dagaal baa wax ka soconaya bariga dhexe kaasoo dhaxeeya Iran iyo Israa'iil bal warbaahinta caalamka maxay ka qortay xilligan Hussein say shakadan u socoto Iran ayaa ma dhan waxa laga hadlayay nuclear laga hadlayay meeting badan way ka dhaceen with the United States and meeting kaas inta waxa uu keenay in meel fiican la shakada la gaarsiin doono uu keenay nikan Netanyahu no de mudoonayo in shakadaas in meel la saaro dagaal buu rabay
ninkaan wakii xalay ku habeen dhawaato wakii ku guuray dee Iran ku guuro oo meesha dhan surprise ku sameeyo dad badan ka laayay head of military iyo nuclear stationadoodii meeshii waxoogii dee waa ka bomgareeyey dee adduunkuna markaa dee inay shock badan ba ka qaateen Americana dee iyagoo inkastay negotiation ku jireen waa ku yiri warumay haynin maantana dee waa ku isbedelo oo yiri war waan u haynay waan ogeyn negotiationkii qaybta labaadna waxay ahayd Sundaydan in lagu laabto dee sida waag tahay ninka Netanyahu sheekadu intuu rabay buu helay marka loo eego diyaaradaha ama marin biyoodka loo yaqaano golof cadan ama ka Masar mada iyo dafaaca caalamka wax laga wabinayeen diyaaradihii qaarkood ay hakad galeen ma sii soconaya dagaalkan mise weli wax waan ayaa hadda adduunka laga haya the prime minister of Israel wuxuu yiri dagaalkan hadduu bilowday wuxuu eg tahay dagaalan weli waqti dhamaan lahaa la haynin waxaa laga warwarsan yahayna in shakadani dagaalkan sii fitmo uu dhibaato weyn keeno because China iyo Russia iyo Ruushku waxay saaxiib leeyihiin oo ay dantoodu ku jiraan waa Iran hadday noqotayna gaaska hadday noqoto militariga weliba Iran waxay ku caawisay drones badan bay ku caawisay Russia oo marka dagaalka Ukraine marka waxaas ka dhici karaysa dagaalkan hadduu xogaa joogsan wax kasan dad kala soo gali karayaan North Korea already waa kuwa hadlayo way caawin doonaan Iran waxaad ka rabtaan soo galaan marka waxaa laga baqayaa inuu dagaalkan sii weynaado haddii weliba China already way hadashay waxaa laga baqayaa China lafteedu in haddii dagaalkan George waayo weliba waa ally ay Iran la tahay waxaas karta iyaga laftooda in dagaal ka bilaabaan dhinaca kale oo Taiwan galaanba ma jiraan carabtu waxay haba yaraatay iyagu maadaama dalalku ay ka mid yihiin ugu qalisan adduunka aanay helin marin biyoodkoodii dhulkuna deegaan carbeed yahay ma dagaal islaameedba ma jiraan wax haba yaraatay iyagu ay waan ka galeen sida qaramada midoobay Mareykanka Ruushka ama cid quwadaha adduunka say og tahay shakadan wadamadan western worldka dagaalkan intay qaadin way ogaayeen hadday noqoto Italy France UK the US war uu hayeen dagaalkan soo socdo laakiinse carabaha wadamada carabta ah wuxuu ogtaa in Jordan kaliya war ka haysay dagaalkan hadda ay isku soo waabirtay dagaalkan marka Jordan laftoodu iyagu baa wax leader oo hadlay badankoodu waxayna ka hadlayeen inay habi ku ahayn in Iran hawadooda isticmaasho ayna ka hadlin Israel in hawadooda isticmaasho waad maasantay asad oo naga waramayay sida dagaalku u saameeyay caalamka iyo sida loo kala saftay halkan waa hadal TV wixii war ka soo galay mar ayaan dib ayada u soconaa iyo wixii falanqeynba aad ba mahadsantahay halkani waa hadal TV oo toddobaadkii maalmaha kamid ah naga daawatan wixii wariyo caalamka gaarsiintaas naga dhigay wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh